قريقا برخد سامع بطون حويها عدالة حسبك وطني وما انت الله الله تلفزيون كهون كيبل ايا شيغين حكومه سوماليلاند bulshada kuma jara habaabinayso wafti madaxtooyadu ay sheegtay inay ka socdeen wadanka Imaaraadka Carabta kuwaas oo kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliland maalintii shalay waxaana uu barkhad intaasi sii raaciyay in tuhno hor leh ay sii abuurayso qarinta waftigaasi Imaaraadka Carabta ka yimi shalay tolo waxa la sheegay wafti Imaaraadka ka socda oo 12 xubnood inuu dalka yimid waxa runtii wax la yaabaa ahayd brotokoolka nidaamka dawliga dunidu wuxuu dhigayaa wafdi caalami markuu dawladdu imanayo hay'adaha dawladda hay'adda qusayso iyo wasiirkeedu inay madaarka ku muqaabilayaan soo dhaweeyaan cidda madaxda iyo maamulka markaa dalka haysa ay ballan uga qabtaan meel dajiyaan wafdigaasi mashaariicday u socdaan iyo meelaha ka fulinayaan in la geeyo wuxuu baanu arkaynay in afka laga sheegay ciddii lala kulmay muuqaalkooda iyo magacooda midna lama hayn awal waxay saldhig u ahaydun inay ula aayeen daliil cad heshiiska qarinayeen maantana maamulku hadda jooga wuxuu marayaa dad nool oo ay yiraahdeen way noo yimaadeen inay qariyaan waxaan isweydiinayay maskaxdeedu ay sawiranaysay ma ruuxaan bay la kulmeen ila ruuxaanta la yiraahdaa kamaraduhu ma qabtaan oo waxa weeyaan marka mufti ruuxaana oo imaaraatis ah ay iska niyeysteen baa yimid arrintii lagu galay ee ahayd inay khiyaamo qaran ku kaceen kulmiyihii horiye kanba inay waxay ummadda ku qanciyaan ay laayihiin wax iibsamaya inay ummadda ka iibiyaan ba haboon ama mas'uuliyaddii ummadda u hayeen ay celiyaan oo yiraahdaan war waanu khaldannaye hana la saamaxo si babliga khaladkooda u qartaan iyo khiyaamada ay ku kaceen ee qaran ama wixii daliil ee cad ay hayaan eeda loo soo jeediyay iyo waxa cad ee meesha yaala ay isaga rogayaan inay keenaan laakiin dama aha kolbaynay aqliga ummadda ay caayaan waxaana ceeb ku tahay nidaamkeena dawladnimay ceeb ku tahay protocol ahaan bay nabar xun oo damage qarnimada gaarsiiyay shalay inay yiraahdaan dad nool baa noo yimid oo qaranayna madrag baa la iibinayay maxaa la waday wuxuu maxay tahay cidda timidiyay ahaayeen magacdooda mansabiyada hayaan muuqaalkooda midnaba lama hayo marka daarinta waxaan u aragnaa gaf qaranka laga galay mar labaad laakiin barkhad afhayeenkii madaxweynaha hadlay xukuumadii way hadashay ajandayaasha ay ka wada hadleen iyo qodobadii baa la soo saaray idinku xisbi ahaan ma sawir baa doonaysaa in la idin soo bandhigo waftiga afhayeenku wakiil kama noqon karayo markay leeyihiin wafti culus oo miisaanka leh oo martabadaha noocaasa maamulka imaaraadka dawladda imaaraadka ka hayaba noo yimid cid waftiga kamidii waa inay afka waftiga ku hadashaa oo ummadda soo hor istaagtaa oo waxa ay sheegayaan iyaguna qayb ay ka ahaadaan maxaa loo arki waayo qof maamulka mas'uuliyiinta leeyihiin madaxweynaha u yimaadeen kamida oo ummadda u sheegaya ulajeedka safarkooda wuxuu yahay afhayeenu ma aha afhayeenka madaxweynuhu dawladda imaaraadka xasan galayd telefishinka home cable hargeysa